ciidamada maamulka Jubbaland ayaa waxa ay maanta howlgallo ballaaran ka sameeyeen suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo xilli maalnimadii shaleeto ciidamo burcad ah kuna libisan dareeska ciidamada ay dhac u geysteen suuqa sarifka ee magaalada Kismaayo taasina ay keentay in ciidamada militariga iyo kuwa booliska ee maamulka Jubbaland ay sameeyaan howlgallo ay ku baacsanayaan ciidamada burcadda oo had iyo jeer si dhuumaaleesi ah dhaca ugu geysta magaalada Kismaayo ganacsatada ku dhaqan markii uu soo ilaaday howlgalka lagu baacsanayay ciidamada burcadda ayaa waxa saxaafadda uga warbixiyay taliyaha saldhigga dhexe ee magaalada Kismaayo Maxamed Cabdi Buule Sugow raayaan ka hadla shaqooyinka dhacay dhowrkii bari aan soo gudbay waxyaabo iska dhacaan bini aadamkana de ma aha malaa'ig ma aha waa bini aadam wax ka dhici kara ilaahay intaan u soo ka dhacay waxa arintan way dhacday wixii dhacay insha Allah inaan ka daba tagnaa diyaar u nahay waxna waan ka qabanay dadkii waa hayna waa maandarada dadkii waxa kalena waa diyaar insha Allah waa noo joogtaan waxaan joognaa magaalada bartankeedii suuqina dhex joognaa ciidamada baa howlgalaya ma yeeli doono qof dambe oo burcad oo magaalada soo gala dadkana waxaan u baaqay in suuqooda wanaag ay ku furtaan wax dib u san jirin maamulka dhan ee Jubbaland uu soo go'aan saarinta iyada anigoo ah madaxa amniga taliyaha saldhigana waxaan diyaar u nahay inaan shaqaad ka shaqeyno magdhow haday tahay wax kasta oo dadka naga lagu raaligelin insha Allah waan sameyn doonaa ilaahay dhanka kale macallin Maxamed Ibrahim Maxamuud oo kamid ah saraakiisha ciidamada Jubbaland ayaa sheegay in howlgalkii maantay ay ku baacsanayeen ciidamada burcadda oo dhaca u geystay maalnimadii shaleeto suuqa sarifka ee magaalada Kismaayo in ay ku soo guuleysteen qaar kamid ah burcaddaasina ay gacanta ku soo dhigeen shalay iyo maalmahan soo dhaafnay baa daliilo weyn baa ka jiray xagga amniga ee go'aan baa ka soo baxay in amniga talaabo dib loo habeeyo in askari qori wata aan magaalada Kismaayo aan qori lala dhaxmar qori hawl ku jiro oo la ogyahay qori ahna aan lala dhaxmarin labo ciidanka amniga loogu talagalay cid ay arkaan oo isku dayraa inay amar ka qaadan weydo hubaysan inay aragtida ku toogtaan falalka shalay ka dhacay kuwa xun ka xunnahay bay ahaayeen guddi baa loo saaray guddigiina hawshu ku maqan yahay inuu natiijo soo saaraan insha Allah ta'ala ka sugayna si kasta waa ha ahaatee raggii lagu soo qabtay inta uu soconayay howlgalka ayaa waxa ay sheegeen mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland in ay soo taagi doonaan maxkamadda Cabdiqadar Iimaan Dhaqane shabakada warbaahinta Kismaayo 24 magaalada Kismaayo